waa kee maska ugu halista badan adduunka? Black Mamba waa maska ugu dheereeya sidoo kalena ugu halista badan adduunka. Maska mambaha madow ma ahan midab ahaan mid madow ah sida magaciisa ka muuqata ee muuqaal ahaan waxa uu eg yahay midabka bunniga ama kafeega, balse magacan waxa uu ku yeeshay midab madow ah oo uu ku leeyahay afka dhexdiisa, kaasoo kaga duwan yahay masaska kale ee adduunka. Black Mamba waa maska ugu dheereeya dhammaan masaska adduunka, waxauna orodkiisu gaarayaa 20 kiiloomitir saacadiiba. Dhererka maskan dilaaga ah waxa uu gaarayaa 4.5 mitir, halka culayskiisu uu yahay 1.6 kilogaram. Waxa uu kaga duwan yahay masaska kale dhowr sifooyin oo gaar ah, sida orodka iyo baxsashada. Waa mid u orda xagga godka. Maska mambaha madow marka uu dareemo halis waxa uuna weeraraa noole walba oo hor istaaga wadadiisa inta uu ku jiro baxsashada. Dhuumashada. Maska mambaha madow waa mid jecel inuu ku qaato habeenka gudaha godka dhulka hoostiisa ah. Isku dhigidda qorraxda. Maska mambaha madow waa mid aad ugu tiirsan qorraxda bannaanka ka jirta si uu ilaaliyo heerkulka jirkiisa, maadaama uu ka mid yahay xayawaanada leh dhiigga qabow. sidaa daraaddeed badanaa waxa uu doorbidaa inuu jiifto qorraxda xilliga maalinka. Ugaarsiga. Maska mambaha madow waxa uu ugaarsadaa maalinkii. Marka hore waa mid qaniina noolihii uu rabay inuu disho, kadib waxa uu ku sii daayaa sun aad u halis badan, taas oo naafaynaysa ama hoos u dhigaysa awoodda dhaqdhaqaaqa ee noolahaas. Black Mamba waa mas aad u halis badan, suntiisuna ay khatar tahay, taas oo keeni karta dhimasho degdeg ah. Waxa uu dilay kumanaan dad ah oo ku kala noolaa daafaha caalamka. Waxa uu leeyahay sun mariid badan. Waxaa sanad walba u dhintaan qaniyadiisa kumanaan qof oo ku nool qaaradda Afrika. Maska mambaha waxa uu badanaaba ku nool yahay godad dhulka hoostiisa ah. Sidoo kale waxa uu ku noolaan karaa geedaha dushooda isagoo ka ugaarsanaya xayawaanada yaryar sida dabagaalaha, dooliga iyo shimbiraha. Meelaha uu ku badan yahay maskan. Badanaa maskan waxa uu ku nool yahay dhulka safaanaha iyo buuro dhagaxleyda qaaradda Afrika iyo deegaanada bartamaha iyo koonfurta Afrika. Wadamada laga heli karo waxaa ka mid ah Congo, Cameroon, Namibia, Koonfur Afrika, Mozambique, Kenya, Ethiopia iyo qaybo ka mid ah dalkeena Soomaaliya. Cimri ahaan maskan waxa uu noolaan karaa in ka badan 10 sano, wuxuuna mar walba jecel yahay inuu kaligiis gooni u noolaado kana dhex baxo xayawaanada kale.